Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam saaxiibayaal. Waxaan rajeynayaa inay maalmaha idinka hor imaado oo laba dhalinyaro ah oo sheeganaya maxaa la dhahay ii sheeg inay yihiin Mataan Cabdulle ay ka yihiin Diinle abtirsanayaan. Abtirsinta la dhahay macnaha kor ka soo bilaabaya hoos keenaya. Kaftamo horta abtirku ma ahan mid kor laga soo bilaabayo hoos la keeno. Kor waxaa ka soo bilaaba dadka dhaqanka ah. Qofka nasabka abtirsa marka loo hoos ka bilaaba magaca aabihiis, awowgiis, abuulankiis, dhadhag jufadiisa waa garataan walena. Kaasa abtir la dhahaa. midkan korena abtir ma ahan kale waa un isku afgarash saxda waa kan magacaaga ka bilaabaysid ilaa kan kore ku keenaysid intaasna waa kaftan dad waxaa arkay hiidka gaaray oo committee ka dhex qeelinayo waxaa arkay dad serious u qaatay oo hadda ani la soo share gareeyay raga saaxiibana oo iyagu keenay maxaa la dhahay Discord-ka TikTok dhahay inuu dahawiyo jareera ku jirto maxaa loo dhahay wiyo waa dhalasho dahawiyo jareer iyo jilaac leeyihiin nasab ma ahane waa macnaha confederation dhalinyaro ay la soo wadaagta marka insha Allah waxaan rabaa inaan la wadaago buug oo qoray qoraal dhaho Levi Kasaleni oo ka diyaariyay maxaa la dhahay koonfurta iyo taariikh yar oo ku xusay buuggiisa oo kaga hadlayo adoon iswadaarsi u dhaxeeyay saldanadii Galadi iyo beesha Mataan la socdo wanaagsan insha Allah waxaan maleeyaa dhamaantiin in video yarkan idinka hor imaaday مشاكي كاغا جيرو إني أهي ويل أبقالة متان عبد الله دين لمتانة عرى للدين لا wanaagsan guys waxaan rabaa inaan la wadaago taariikh dhacday almost 112 sano ka hor soo jeedin buuga magaciisa waxaa la The Shaping of Somali Society waxaa qoran ninka la yiraahdo Levi Kasaleni wuxuu ka hadlaa taariikh orala iyo wixii goobjoog u ahaayeen Talyaaniga qarnigii 16aad ilaa 19aad wixii u dhaxeeyay okay waxaan rabaa markii inaan idin la wadaago page-ka 212 ee buugani iyo waxa ku qoran okay waxaan joognaa hadda page 212 ilaa iyo page 212 bilowgiisa fartaan inta jaalaha meesha saarantaa rabaa inaan idin la wadaago inta u dhaxeysay 1896 ilaa bedelo ba'an ah ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose isbedeladaas oo sababay in maxaa la dhahay adoon qaar ay ka farxadaan masterskooda ama dadka ayaga gacanta ku hayay in la waayo beerihii rag lagu fasho in carqalada dagaal ka dhaco magaalada marka sidoo kale nawaaxiga afgooy degmada la dhaho Lafoole Talyaanigii oo dadkii beeraleyda ahaa rabay inuu beerahooda kala wareego adoonsigana la joojiyo marxalado kala duwan ah dhacay laakiin anaga ujeedkan u socono qasaa'istaas inaan ka hadalno maaha iyo page-ko dhameystiran iyo buugga inaan kor ilaa hoos u marno ma rabno ujeedkan u socono waxay tahay meesha aan cagaariyay aan jaalaha idin saaray huruuda warqad ka timid suldaanka Galadi loona diraayay konsulka ama suldaanka Duuliye waa fahanteen amalena Duuliye waa kuma Duuliye waa laf ka tirsan Mataanka marka warqadda waxay ka imaatay suldaanka Galadi waxayna ku socotay konsulka Duuliye ama Xaaji Axmed si loo yaqaano warqadan waxay ahayd codsi oo ku codsanayo Galadiga suldaankooda in loo soo celiyo adoontiisii farxadka aheed ka soo fakatay afgooy nawaaxiga una soo carartay dhankani Muqdisho waxayna ku codsanayeen Mataan inuu u soo celiyo adoontooda ugu bedeli doonaan hubkii iyo laga furtay ama lagu qabsaday dagaalkii lala galay Chechi oo ka dhacay Lafoole sidoo kale Galadiga waxay ballan qaaday xiriir nabadeed iyo waxyaabo badan balamo badan hadii loo soo celiyo adoontooda bila adoon saldanada Galadi wuxuu ku tirsanaa dhaqaalaheeda dhanka beeraha adoonta la'aantoodna waxaa hoos u dhacay wax soo saarkoodii waxaa hoos u dhacay maxaa la dhahay ganacsiyadii ay la lahaayeen saldanadaha kala duwan marka waxay codsanayeen in loo soo celiyo adoontoodii sida ka muuqata meeshan waa kan a letter sent to dear and honorable friend to grant commandate to consul Dolio to our friend Haji Ahmed may God protect all We have sent this letter
with a courier from the Matan tribe for a purpose. Ujeedada warqadda loo soo diray waxay ahayd of obtaining the return of the slaves, in la xaqiijiyo la sugo soo celinta addoommada who fled to Muqdisho, kuwaasoo u cararay ama u baxsaday Muqdisho, in exchange for a gun, in lagu bedesho macnaha hubkaasoo lagu qabsaday dagaal u dhexeeyey wacdaanka iyo maxaa la dhahay Talyaaniga. marka saldanadan waxay ballan qaaday hub iyo maxaa la dhahay hantiba inay siiso mataanka haddii ay soo celiyaan addoomadii. In short, war ku dheeraa maayo, tiktok videoyaasha dheer kuma fiicne. hala yaabin haddaa aragtid qof jareera sheeganayo mataan, sababtoo ah suldaankii duuliye mataan jareer badan xoreeyey. addoon nasiis banaan ninkii xoreeyo ku hoos noolaadaa oo ag degan yahay maxaa la dhahay isheeg oo weligiis ku tiirsanaadaa. marka that's it, waxaan rabay warqadda in la wadaago. waxaana waa sida meesha ka cad warqadda bejka qeybtiisa kore wax la xiriiri waayey 1890 ilaa 95 dhibaatooyin dhacay. marka almost waxaa kasoo wareegatay 130 sano haddaan qaldaneen. waa mahadsantihiin. and ujeedada videoga waa for educational purpose, ma aha nacayb faafin maaha, keliya waa taariikh hor u dhacday. bejkan waxaa lagu falqiyaa taariikhda, way xumaan kartaa way wanaagsanaan kartaa. and history waxaa waaye wax record garaysan cidna mu aabeesho. marka nacayb shakhsiyad ma jiro, nacayb qabiil ku wajahan ma jiro. keliya waxaan ka hadlayna waxaa waaye yaa asala iyo deegaanka ayaan ku noolaa jiray. qabiil walba taariikhdoo laha. if haddii jararta waxay wanaagsan hor u sameeyeen dagaalo ay galeen jiraan waa soo bandhigeena. haddii qabaa'ilada kale soomaalida ayagana sidoo kale waan soo bandhigeena. annaga platformkeena waxaa looga hadla keliya taariikh. dad aaminsanaa jiro soomaali ma gumaysato. adduunka gumaysi waa kasoo dhacay. dal walba dadka isla degan way kala adkaayeen, way isku soo taliyeen, way soo adoonsadeen. this is history, wax record garaysan waa waxba kama bedeli karno. marka cadifada iyo taariikhda in la kala saaraa rajeynaa. waa mahadsantihiin. barta tiktok soo dhigi doonaa, sidoo kale youtube waa gee doonaa. meel dheer la gaarsiiyo insha allah. mahadsantihiin.